jiqiiq dam qaylo dheer iyo argagax kadib gaadhigii ayaa galay gaadhiga kale dhiigga qulqulaya iyo meydka fikir aakhirada sheeko ku cibro qaadasho mudan waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan oo alle joogeeda iyo jaaheeda dhameeyay waxaan ay ku jirtay xilliga ugu quruxda badnaa uguna wanaagsanaa waqti qof adduunyada jiro oo ahayd waqtigii dhalinyarada waxaa ka awood weynaatay hawadii shabaabnimada oo ma yahayn qof cibaadada ku wanaagsan xiriirka allana ma yahayn qof xoojisa xasuus ay xasuusato allihii abuuray way ku yareed intaas waxaa u dheeraa hablabiskeeda oo ahaa mid aan wanaagsanayn oo jidhkeeda qaybo ka mid ah waa laga dhex arki jiray dharka ay xirato jaamacadda marka ay tagayso waxay u soo liibsan jirtay sidii in ay aroos tagayso kale wiilasha ay isku fasal yihiin iyo dhammaan dadka kale ee indhaha ku dhufta waxay iskugu jireen kuwa hoos lacnada iyo kuwa ku raaxaysta jirkan ay cilada ka heleen iyadu waxay ahayd qof garanaysa waxaan ay sameynaysa inuu dambi yahay haddana waxa ka awood batay shaydaankii iyo hawadii shabaabnimo oo waxay istiraah ku ahayd raggan ku mashquula jirkeeda iyada oo isku qancisay inay ku soo jiidan karto habdhaqankan ninkii ay oori u noqon lahayd akoonka ay ku leedahay baraha bulshada waxay ka buuxisay sawirro aan asturnayn oo dharka ay xirantaaba mararka qaarkood jirkeeda caadi looga dhex arkayo umaanay aabo yeelin sawirada ee maalin walba 5 sawir ayay soo dhigi jirtay iyada oo rabta kaliya inay ku soo jiidato rag badan asxaab badanna ku hanato sidoo kalena quruxdeeda ku soo bandhigto isla marka ay sidaas u soo dhigto sawir markiiba waxaa like iyo comment ku yaaci jiray rag intii ugu akhlaaqda liidatay uguna iimaanka xumeed oo ka buuxin jiray sawirka ereer inta ku sii dhiirigelinaya xumaanta ay wado oo ay ka mid yihiin maasha Allah waad qurux badan tahay quruxleyda xageed ku nooshahay iyo waan ka helay ee namarkaaga isii halaas oo qalbigeeda ku sii dhiiranaan ah inay xumaanta ku sii jirto sidoo kalena isku qanciso inay sidaani wanaagsan tahay aakhiradeedina ilowdo iyo in adduunka yaa wax aan la isku haleyn karin oo maalin ay ogeyn ka tagi doonto waxay ilowday xanuunka sakaraatul mawtka xisaabta dambaysa iyo xaqdarada ay ku sugan tahay waxa uu waqtigu isguro waxay maalmaha ka mid ah ay u baxday safar iyada iyo hablo ay saaxiibo yihiin waxaana weheliyay wiilal fara badan oo dhaqan xun qosolka faraka ciyaarka isaal dhageysanay jaaska iyo kaftanka aan xadka lahayn ee ka dhex dhacaya ay la socdaan xad male waxa mar kaliya indhaha ku dhuftay darawalkii gaariga waday gaari kale oo ka soo baxay xadkiisa kuna soo beegan dhankooda jiqiiq dam qaylo dheer iyo argagax kadib gaadhigii ayaa galay gaadhiga kale dhiigga qulqulaya iyo meydka ilbahoodu isdhexdaasayay naxdin baa ku dilaysa miiro kadib waa meyd inantii xadda iyo rarinta mooganaanta ah ku jirtay hilbaheedii waxaa loo soo qaaday xaggaas iyo dhakhtarkii ugu dhowaa ee magaalada isla saacado kadib hoygeed xaq ah ayaa la geeyay asxaabteedu markiiba waxay u soo basti gareeyeen Allah u naxariisto kuwa ugu dhowaa waxay ahaayeen kuwa iyaga oo ilmeynaya ku soo qoray walaalkeeda taxsida maanta laga bilaabo xisaab ayaa u bilaabatay qof walba oo boodogay ku lahayd baraha bulshada wuxuu arkaa sawiradeedii oo aanay indhuhu ku siin karin qaar ka mid ah asxaabteedu waxay soo sheer gareeyeen sawiradeedii oo ay dadka la wadaagaan iyagoo la u duceeya maanta wax walba way joogsadeen sawiradii iyo hadaladii aan macnaha lahayn ee ay soo qori jirtay iminka xisaab ayaa u bilaabanaysa meeyay sawiradii qaawanay way ka hareen oo wali waxay ku jiraan akoonkeedii qofkii booqdana indhuhu ku dhufanaya qalbi xanuun weyna oo dambi badana Allah intaas wiligeed may arag wiil ku yiraahdo is astur mid amaan mooyaane qof walba oo garanaya wuxuu ka nixi jiray markuu booqdo akoonkeedii isagoo garanaya dambigay leedahay arintaas ogsoonaw haddaba dulucda sheekadani waxay isku soo aruraysaa
maanta kelmad kasta iyo sawir kasta oo aad meel dhigto waa mid laga xisaabin doono maalinta qiyaame. Ka feejignow in aad dad fitnada u horseedo oo aad adigu u bilowdo. Walaashay jirkaada asturo, wax walba maalin ayay joogsan doonaan. Wiilasha commentiga ka bixiya ama se like saara ha ka taxadiraan in ay gabadh walaashood oo kale ah dambiga sii galiyaan. Waa inay iyagu ka qabtaan. Dambigaad maanta samaysaa waa mid ku yar godkaaga qabriga. Ka fikir aakhiro wax walba oo aad qabanayso. Macmacaanka gaaban iyo dhaldhalaalka dunida yuu ku hoodin. Ma ogid waqti aad tagaysid. Dhalinyarnimada macnaheedu ma ahan in aad dhimanayn. Mar walba in aad dhimato waa suurtagal. Ma joojin kartid wadka, laakiin waxaad joojin kartaa dambiyada. Tibian College for Languages and Maths qalinka iyo waxbarashadu qiimaha ay leeyihiin qaadir baa tilmaamo quraanka cadeeyo qasnad weeye buuxdo qofkii helay ku faa'iido aan qeexo hadalkooda aan ka qaaday qolqolkii ardayga iyo adoo qoyska joogiyo marad hawlo qabanood qorshe maalintii aad qaybtood ku maqan tahay cilmi qaybihiisa iyo qubanaha uu leeyahay English la kala qalay qusuusiga af Carabiga qaamusyadoodiyo afka hooyay qaaliga xisaab la isku qoofalay qurxinta iyo dhigaalka qoton loo adyaabtiyo aqoon loo qoshuuca qormada ay ku ilishahay waa Tibian College for Languages and Maths online. College-kan oo online waxbarashada lagu bixinayo ayaa duruusta uu bixinayo waxa kamid ah English, Arabi, Somali, xisaab, handwriting of English iyo handwriting of Arabi. Duruustaasi waxa bixinaya macallimiin khibrad iyo aqoon dheer u leh. meel kasta oo joogsana waad ka faa'iideysan karaysaa. Hab online ayaad ku helaysaa. Haddaba la xidhiidh Tibian College for Languages and Maths isdiiwaangeli oo garaac telefoonada 4144 iyo eber 65 44 nambarka waxbarashadu waa eber 252 63 44 ha moogaanina Tibian College.